nin odaya halka mara dhaweydaan musqusha ku socday iga qabtay wuxuu yiri wallahi hadan u dhaqaaqayn waa isla ka sawiraya waa gartay meeshu ka yimi ninka saa igu dhiiranaya ee oranaya wallahi hadan dhaqaaqayno musqusha aadaynan hadaadan isla ka sawirin waa gartay isagii baaba yiri ha Puntland baan ka socdaa وافلي بانري وافلي no problem halkan Virginia a metropolitan area nin muddo badan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa nina taqaaniin baa Puntland madax ka ah Abdiweli Cali Gaas I don't know what that clapping is for. Mindeen mar horay bahayd inaan ku bilowno. waa aan yara mideen hadda waxaas ma jiraane wasxaanimada badani ma jirtay waa aan yara oo iskuulada ku jiray fasaxa marka la aado gabdhuhuna arigay raacaan wiilashuna geelay raacaan isuma yimaadaan laakiin hawaday ay isu mariyaan boodi baa la yiraahdaa boodi marka inamaduna gabadhay u kala tiriyaan saasatahay oo saasatahay oo yada waa sida reerkiina waa sida iyana sidaas leeg inanko boodi warayannaka iyo Puntland boodi isuma dirayna hawlo badan baa naga dhaxeeyay hadii cidahaasu iyaku in badan baa noba hadda intii yareeyay uu Abdiweli Cali Gaas uu madaxweynaha in badan baanuba xiriir yeelanay anigaanu wada yeelanay Cali Ciise Cabdi oo si fiican isu yaqaaniin not about actually 5 jeer ama 6 jeer bay wada fadhiisteen waa ognahay Abdiweli Cali Gaas where he stands meeshu hadda joogana I am not even confident in aan wada hadal isugu iman karno oo nin kula soo taagan dastuurka waxa iigu yaala sool sanaag iyo cayn ana madaxweynaha ana leh hadda Siilaanya ma yiraaho هذا Siilaanya ma yiraaho sool iyo sanaag iyo cayn ana leh Abdiweli ka daro dibadhal wuxuu yiri hadii waliba dadka afti laga qaado 90% anay ila jiraan wallahi anagu waxaanu oranaynaa ama aan anigu leeyahay saada Allah ha u naxariistee heesteediina markii dheedu waaba maqlayay ma oranayo afkiiba juuqda gabaye waxaan oranayaa wada hadal irje gelinaya annaka iyo Puntland ma muuqdo unless things change fundamentally change arinta Puntland intaasaan ku oranaya